بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii taxanaha ah ee maadada Englishka ah. Waxaan soo qaadanay 4 tennis aan maraynaa: tennis koowaad, tenniska labaad, tenniska saddexaad iyo tenniska afraad. Maanta waxaan rabaa tenniska saddexaad inaan u noqdo. Waxaa laga yaabaa dad badan oo asxaab badan ama arday badan ku xiran janaalkani inay isweydiiyaan simple past tenniska loo soo celiyo maxaa waaye. Muhiimadda ama hadafka loo soo celiyo waxay tahay tenniskan saddexaad simple past tennis waxaa jiro verbyo aan soo sheegnay oo way u dambeeya aragna marka inaan isfahansiino. Markaan soo qaadanay tennis saddexaadna waan ka soo hadalnay ayagoo hordhaca, laakiin hadda waxaan rabnaa inaan si faahfaahsan inaan uga sheekeyno. Ka hor intaan u guda gelin waxaan rabaa, janaalku waa janaal cusub. Haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawata janaalkani ama aad aragto, fadlan waa codsi asxaabta ku xiran janaalkan waxaan leeyahay subscribe, share, like intuba dhag aan lagu siiyo. Intaas waa codsi. Waxaan leeyahay janaalku waa janaalkiina. Idinka ayuu niiga rabaa inaad kalkicisaan, aadna share gareysaan, aadna like saartaan, aadna subscribe gareysaan. Intaas waa codsi. Okay. Maanta waxaan ka hadli doonaa sidaan soo sheegnayba simple past tense oo waxaan kusoo aragnay tenniska saddexaad. Simple past tense waxaan soo dhahnay haddaan hordhac ama introduction ka siino, wuxuu ka hadlaa fal dhacay shalay ama dhacday shalay oo laga soo tegay ka hadlaa. Simple fudud past tegay tense dhaca is used waxaa loo isticmaalaa to express in lagu muujiyo in lagu qeexo an action ficil which ficilkaasoo happened dhacay in the past time. Ficilkan ama dhacdani wuxuu dhacay waqti tegay, uu dhacay shalay, daraad, xali oo dhacay. Marka fal dhacay ama dhacdo dhacday ayuu ka hadlaa tenniskan. Ilaa waxaa ku garan kartaa past alla simple past maxaa waaye fal tegay waaye ama dhacdo dhacday ayuu ka hadlaa. Marka okay, formula oo ku shaqeeya maxaa waaye subject ficil sameeye keen. Subject muxuu noqon karaa noun, wuxuu noqon karaa subject noun ama wuxuu noqon karaa subject pronouns. Subject nouns ama subject pronouns. Ficil sameeye oo magaca ama wuxuu noqon karaa ficil sameeye magacuyaal ah. Waan soo sheegnay nouns kuwa ah iyo kuwa pronouns ah. Waan soo sheegnay waxaan 7 pronouns ayaan jiraan adani. Waan soo sheegnay ka mid yihiin she, he, it, they, we, you, it. Ka mid yihiin I intaas maxay yihiin pronouns waa. Nouns waan soo sheegnay ayaga. Maanta waxaan rabnaa marka anagoo u fiirinayno verbyada way u dambeeyo. Markaan ka soo hadalnay tenniska saddexaad simple past tense waxaan soo sheegnay verbyo oo ku dhamaada way aan dhin Soomaa. Ayagoo macnaha hordhacan ka soo hadalna bis si fiican uma gudgalin. Balse maanta waxaan rabnaa inaan si fiican ama si wanaagsan ama si dheeraad ah inaan macnaha uga sheekeyno. Horta tenniskan saddexaad subject ficil sameeye hadduu imaado plus verb past, verbka la isticmaalayna ahaado la mid past ah. Ilaa waxaan ka soo sheegnay tablekan soo qaadanay kuwa present ah, kuwa past ah iyo kuwa bb ah aan soo qaadanay. Kuwa simple maxay yihiin kuwa fudud oo verbyada aan isticmaalno waa. Past maxaa waaye kuwa tegay waa macna. bb ni kuwaas macluuqan qaarna waa regular qaarna waa irregular waa. Regular ya simple kuwa, irregularne kuwa past iyo bb past par simple kuwa. Marka plus object ficil gudoomo keen. Haddii ficil sameeye aa keentid ku daro la verb past. Verb past maxaa waaye tableka aadaysaa kii past ka dhigaysaa, kii past aan noqonna oo simple iska ana ed aa raacsiiyay. Ilaa tenniskan wuxuu ku shaqeeyaa waxay tahay ed waa. Tennis kasta wuxuu leeyahay calaamad lagu garto. Tenniska waa calaamad lagu garto waxaa waaye ing oo verbka la raacsiinayo. Tenniska labaad verbka is la raacsiinayo iyadoo shuruud loo fiirinayo. Tennis saddexaad maxaa waaye verbka la raacsiinayo ed. Tenniska afraad maxaa waaye ing ed is la raacsiinayo will allah bis will allah marka will make allah marka. Okay, aan ugu galno marka waxaan dhan marka la joogo tenniska saddexaad waxaa jiro verbyo way ku dhamaada. Anagana waxaan soo sheegnay verbka marka la isticmaalayo in lagu daro ed aan sax hadduu past yana past laga dhigo, hadduu past oo yahay kuwa oo regular u yahay in ed lagu daro. ed markii lagu darayo verbyo waxaa jiro oo way ku dambeeyo.
kuwaasi way u dambeeya verbyadaasi way u dambeeyo ma ayagoo way u dambeeya ed liskaaga daraa mise waxaa jirto isbeddel oo lagu sameynayo verbkaas waa mid la isweydii karaba waxaa la dhahay verbyo waxaa jiro way u dambeeya verbyadaas way u dambeeyana tenniska saddexaad markaan joogno waxaa la dhahay verbka waxaa lagu daraa ed aan dhahnay hadduu basti yahayna bastia laga dhigaa basti uu yahay lasoo qaataa haddii uu yahayna mid regular ahna verbka waxaa la raacsiiyaa dhahnay ed so that marka anigoo taas u fiirinayno verbyada u dambeeya waay ma ayagoo sidooda ed lagu daraa mise isbeddela lagu sameynaa waa midda maanta aan rabno inaan si fiican u sharxno waa ila soco marka okay intaan horta aan inta sabuurada noo saaran slaadka kuwa noo saaran anoo inta aan u gudgalin waxaan rabaa si micnaa waa oo dheeraad ah ama si la fahmi karo ama example dheeraad ah ama sharxaan dheeraad ah inaan usoo qaato intaan slaadka fiirinin horta verbyada way u dambeeyo markii la rabo in ed lagu daro ama markii la rabo in s lagu daro tennis laadna soo galay verbka s markii la rabo in ed lagu daro ama markii la rabo in s lagu daro verbyada u dambeeya way waxaa loo fiiriyaa shuruud ilaa markaan joogno tenniska labaad maxaan dhahnay oo verb s la raacsiinaya shuruudaa jirta sax markuu hadal caadi yahay uuna sii yahay mid statement ama hadal iska caadi yahay verb maxaa la raacsiinaa s la raacsiinaa hadduu subjectiga meesha yaala uu yahay jamc uuna yahay hadal caadi ah verbkaasi ma la raacsiin karo wax s ah tenniska labaad maxaa waaye shuruudoo lahaa tenniska saddexaadna ama verbyada u dambeeya wayna ayagana waxay leeyihiin shuruuday leeyihiin laba shuruuday leeyihiin markii ed lagu daraayo ama markii s lagu daraayo ma layskaaga daray waxaa loo fiiriyaa labadaas shuruudaa loo fiiriyaa goormee kuwee waay waa verbyada u dambeeya waay wa kuwa kale ma ku sameynaysa balse waxaa fiirinaysaa verbyada u dambeeyo shuruudaa loo fiiriyaa maana ma ahan in ed ama s layskaaga daro waa inaad laba shuruud u fiirisaa laba shuruud loo fiirinaa maxay tahay labada shuruud oo u fiirinaysa midda koowaad waxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay ila waay u dambeeya sax waxaa lagu dhahaybo verbyada u dambeeya waay wax kale kasii dambeeya male waaydaas bisa u dambeeya saasaa lagu dhahay marka waxaa leedahay marka shuruud koowaad waxaa waaye waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal waaydaas ma la taabanayo si fiican la soco waa muhiim badanaa ardaydu verbyada u dambeeya waay way ku wareeraan iyadoo shuruud loo fiirinin ayaa s am ed layskaaga daraa marka muhiim waa markii lasoo gaado tenniska saddexaad verbyada u dambeeya waay markii la sharaxayo si fiican loo dhageystaa be careful si fiican adoo taxatiran si fiican loo dhageystaa macalinka ila waa muhiim waa inta meesha ugu badan ardayda maxaa waaye ay fahmi la'san waa ay fahmin waa su-aal magii laga weydiinay ay ka jawaabi karaan ama ay khaldayaan waa marka si fiican saxaabta ku xiran janalka waxaan leeyahay si fiican loo dhageysto marka shuruudda koowaad maxaa waaye waay xarafka inta ka jiro hadduu yahay shaqal waaydaas ma la taabanayo sideeda loogu daraa s ama sideeda loogu daraa ed aan ku celi mar kale waxaan ku dhahay shuruudda koowaad waxaa waaye laba shuruuda loo fiiriyaa verbyada u dambeeya waay shuruudda koowaad waxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal waaydaas ma la taabanayo sideeda loogu daraa s ama ed mar saddexaad verbyada u dambeeya waay waxaa loo fiiriyaa laba shuruud shuruudda koowaad waxaa waaye waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal waaydaas ma la taabanayo sideeda loogu daraa s ama ed shuruudda koowaad waa taas shuruudda labaad waxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shibane waayda waa la tuuraa waxaa lagu badaraa i kadib waxaa lasii raacsiinaa s ama la raacsiinaa ed aan ku celi mar labaad shuruudda labaad waxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shibane waaydaas waa la tuuraa ama waa la burburinaa kadib waxaa lagu bedelaa i kadib baa lagu sii daraa s ama ed mar saddexaad shuruudda labaad waxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shibane waaydaas waa la tuuraa ama waa la burburinaa waxaa lagu bedelaa i kadib waxaa lagu sii daraa s ama ed waxaan filayaa laba shuruud in la fahmay shuruudda koowaad maxay tahay waay xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal waaydaas ma la taabanayo sideeda loogu daraa s ama ed
shuruud labaad waxay tahay y xarafka inta ka jira hadduu yahay shibane y-daas waa la tuuraa ama waa la burburinaa then waxaa lagu daraa waxaa lagu bedelaa I kadib waxaa lagu daraa S ama ED. waxaan filaa laba shuruud in la fahmay. tusaalahan ka bixiya marka aan usoo qaato kuwa aan y la burburinayo sidood S loogu daraa ama sidood ED loogu daraayo. play oo kale play y xarafka inta ka jira muxuu yahay play ciyaarid y xarafka inta ka jira muxuu yahay shaqal waa play alla mano before ben al y before ben lay waa y xarafka inta ka jira muxuu yahay shaqal waa shaqalkee waa waa maxay tahay shaqal waa marka y-daas mala taabanayo sidaa loogu daraa blaze allah isaa sidaa loogu daraa ama ed waxaa la plate allah mala burburina waayo sabab maxaa loo burburi waayo ila shuruudda koowaad waxay ahayd y xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal y-daas mala taabanayo iyadoo sideeda waxaa lagu daraa s ama lagu daraa ed sideed marka verbka meesha noo yaalo waa playna y xarafka inta ka jira waa shaqal saasaa marka sideed ugu darna s saasana ama sideed ugu darna ed haddii lagu weydiiyo su-aashaas oo lagu dhaho playa taale verbka adigana s ku dartiye ama ed ku dartiye tan saddexaad markaa la joogna verbyada u dambeeya waay shuruudaha loo fiiriyaa shuruudaha adiga u fiirina s ku dartay ama ed ku dartay sababta maxaa waaye waa inaad ka jawaabi kartaa dhihi kartaa shuruudda koowaad waxay ahayd y xarafka inta ka jira hadduu yahay shaqal y-daas mala taabanayo sideeda loogu daraa s ama ed waa inaad dhihi kartaa. okay aan usoo qaadana marka example kale ama verb kale oo shuruudda labaad ah. waxaan soo qaatay cry oo kale hadda oo slaadka noo saaran yahay cry ooyin cry y xarafka inta ka jira muxuu yahay shibana waa r maxay tahay shibana waa y-daas waa la tuuraa waxaa lagu bedelaa I kadib maxaa la raacsiinaa ed ama s. waxaan filaa marka inaa la fahmay. hadda marka aan gudgalna marka example kood wuxuuna leeyahay cry aan soo qaadana verbka cry ooyin cry ooyin why are you crying maxaa la oonaysaa why do you cry maxaa la oysaa why did you cry maxaa la oysay why will you cry maxaa la oy doontaa cry maxay tahay ooyin waa marka. okay su'aalaan ka bixi marka waxaan dhahay he cry ma dhaha maya tan saddexaad ka dhigay waa cry waxaan sameynaa shuruudaan fiirinaa isla marka fiiriya shuruudaan fiirinaa cry oo waxaan arkay jumlad kale ku jirto tennis kale ku jirto kadib waxaa liigu dhahay ku bedel tenniska saddexaad u bedelaa liidahay intaa bedelin horta maxaa fiirinaa shuruudaha fiirinaa verb meesha iyaalaa fiirinaa laba shuruudaa fiirinaa laba shuruud iyo waafaqsan yahay midku waafaqsan yahay oo la shaqeynaa agaas marka maxaa la sameeyay marka hadda cry aad mugtahay maxaa la sameeyay maxaa loo fiiriyay shuruudku oo labada loo fiiriyo maxaa la y xarafka inta ka jira waxaa waaye shibane sideeda marka waxaa la lahay y-da tuur I ku bedel meesha maxaa la keenay ujeedaa I la keenay asal kor maxay c r y ahayd y la tuuray maxaa loo bedelay I-daas loo bedelay kadib maxaa la raacsiiyay ed c r ed ma dhihi kartid y-da tuurtay bedelkiisa waa inaa meesha ku jirtaa y bedelka maxaa loo bedelay I lagu bedelay isku ogow y markaa tuurtid I lagu bedel wax kale ku bedelin y tuurtay I ken meesha y ka tuurtay waa inaa I timaadaa hadda meeshaan cry ahayd y ku jirtay inta y ma arkaysaa waa maya maxaa ku arkaysaa I ku arkaysaa I lagu bedel marka y lagu bedel marka shuruudda waxay ahayd y xarafka inta ka jira hadduu yahay shibana y tuur ahayd kadibna ku bedel I ku bedel y-da maxaa loo bedel marka y-da I lagu bedel kadib waxaa la raacsi ed al raacsi maxay noqon kartaa he cried wuu ooyay he asagoo cried wuu ooyay yesterday shalay wuu ooyay he cried yesterday shalay wuu ooyay isaga baa tiri he asago cried wuu ooyay baa tiri yesterday shalay. example labaad move dhaqaaqid move dhaqaaqid maxaa u fiirinaa tan waa dhan muu fiirinaa marka badanaa tan waa lagu wareeraa idane move ma sideeda ed ugu daraa ma s ugu daraa tan sideeda ed lagu daraa ma s lagu daraa movies move sideeda ed ama s la iskaaga daraa marka waa way mu dambeys mugtahay qaabta laga loo fiir laakiin ed s la iskaaga daraa su'aal ka bix maxaa la maray she moved buu yiri she ayadu baa tiri moved way u dhaqaaqday baa tiri
a new house guri cusub bay u dhaqaaqday baa tiri iyadu waxay u dhaqaaqday guri cusub baa tiri she moved a new house guri cusub bay u dhaqaaqday stop waxaa jiro verbyo ayagana laba laabma waxaa jiro verbyo laba laabma dhabaaqooda waxa u dambeeyo ee laba laabmaana jiro maxaa ka mid ah stop oo kale stop jooji baa tiri way laba laabmaan marka stop erayo verbyo waxaa jiro dhabaaqooda laba laabmaan jirto double ay noqdaan stop sample muxuu noqday they stop it they ayagu baa tiri stop it way joojiyeen the car gaariga they stop it the car way joojiyeen baa tiri gaariga they ayagu stop it way joojiyeen the car gaariga baa tiri su-aal ka dhig ila tan saddexaad auxiliaries muxuu ah did waa did la banaanba maxaa la marka did he cry all maxay cried ee soo maha maxaa la soo celi cry la soo celi asalkeeda la soo celi simplekeeda la soo celi sababta la soo celi maxaa waaye cried waa past didna waa past laba past marka hal meel misla qaadan karaan did iyo ed ama did iyo past hal meel misla qaadan karaan haddii meesha did ay joogto verbka wuxuu noqonaa simple haddii verbka past uu yahay did oo past ah meesha ka maqan hadal caadi markuu ahaa yaa maqana dhidaa maqana he cried yaa joogo cried oo past yaa joogto hadda su-aal la tagay yaa maqan ed yaa maqan ama verb past ah maqan maxaa joogo verbka simbalka ah yaa joogo balse dhidaa joogto oo past ah waaksima dhidaa past marka maxaa la maga did he cry yesterday miyuu ooyay isaga shalay baa tiri did he cry yesterday miyuu ooyay shalay baa tiri ayagana isku mid waa haddii meesha hadal caadi markuu yahay verbka la isticmaala muxuu yahay verb past ama ahaada mid irregular ah ama ahaada mid symboliska ah oo ed liskaaga dira ahaado laakiin markay hadal caadi yihiin meeshu waa inay ka maqnaadaan dhid verbka la isticmaalaana uu ahaada verb past balse markay su-aal ee tahay ama su-aal diidma isla jira markay tahay oo dhid la keeno meesha verbka waa inuu noqdaa verb symbol ah waa inuu noqdaa ma noqon karo verb past ardayda badanaa waxay sameeyaan dhiday soo qaataan verbkana maxay ka dhigaan pastay ka dhigaan qalad waa marka wrongi waa taas haddii meesha dhid ee taalo verbka waa inuu noqdaa mid symbol ah hadduu verbku yahay past meesha waa inay ka maqnaataa dhid waa inay ka maqnaataa sidaan kusoo arkan tennis class maxaan dhahnay s iyo das hal meel misla galaan meesha dee das ay ku jirto yaa ka maqan saa ka maqan meesha dee s ku jirto yaa ka maqan dasaa ka maqan s gormay maataa marka hadal caadi ay tahay iyadoo shuruud loo fiirinayo dasna gormay maataa markay su-aal ay tahay kanna waa saas oo kale marka past verbka past gormay maadaa markay jumladu ay tahay hadal caadi dhid gormay maadaa marka jumladu ay tahay su-aal ay tahay ay timaadaa marka maxaa rabaa marka waa inaad fahmi kartaa marka maxay noqon marka did she move a new house did she move miyay iyadu u dhaqaaqday a new house guri cusub marka saasaa la rabaa marka inaad kala fahmi kartid marka cashirkeena halkaas ayuu ku egyahay kaliya waxaan usoo qaadan waxay tahay sida loo isticmaalayo verbyada u dambeeya waaye iyo shuruudaha loo fiirinayo ilaa ardayda badanaa way ku wareeraan tenniska saddexaad ee simple past tennis ah markii la isticmaalayo verbyada waaye u dambeeya ardaydu way ku wareeraan marka si ardayda u wareerin aan usoo qaadanay marka ardaydani ama saxaabta ku xiran janaalkani waxaan leeyahay verbyadan aaday u adag yihiin balse hadda waxaan fahmaa inaad aad u fahanteen aadna ku celceli doontaan ilaa janaalkani wuxuu soo deeyaa cashiro iyo garaamaro iyo tennisyo iyo conversationo adiga ku xiisigeliyaa balse adiga lagaaga baahan yahay inaad dadaalka la timaadid ilaa hore waxaa loo yidhi dadaalaa wuu gaaraa markaad dhammaanta dadaashid berito waa gaaree laakiin haddaad dadaalin berito ma gaaraysid waxaad haddaad tiitin aad beerato berito waxaa hele tiitiin haddaad geed aad beerato berito waxaa hele geedaa hele maanta haddaad ku celcelisid tennisyada iyo dhammaan conversationka ardayda daneysa englishka berito maxaa noqonaysaa qof waxaa noqonaysaa good learner ah about this fantastic language aa noqonaysaa balse haddaad ku dadaali weysid tomorrow ma noqon doontid fantastic language ku noqon doontid luuqadaani maxay kaa rabtaa dadaalay kaa rabtaa wax walba aad baranaysid maxay u baahan tahay dadaal juhdi iyo waqti u baahan tahay in lagu bixiyo marka tennisyadani aad u adagyihiin way fudud yihiin laakiin u fudud yihiin ardayda daneysa ee markasta ku celcelisa baratikeysa waqti iyo juhdi intaba ku bixiso iyo baratigood ayay u fududahay balse ardayda intaas aan ku bixinin ma ahan mid u fudud marka asxaabta ama ardayda ku xiran janaalkani sidaan qiyaasayo ama sida boqolkiiba 88 aan qiyaasayo
waa asxaab mise arday danaysa luqadda Englishka aadna u dadaasha waqti juhdina ku bixisa. Sidoo kale waxay aad u heleen janaalkani ila janaalkan wuxuu kuu suurtageliyaa waxay tahay inuu kaa dhiso garaamarada, tennisyada, conversationka dhammaan intaba ku saabsan luqadda Englishka ayuu kaa dhisi doonaa wuuna kaa dhisaa. Wallo waa midaasi balse adiga dadaalka waa xaggaaga. Macalinka waxaa la boqolkii 70 hadduu ku sii 20 ama 30 soo haro adiga lagaa rabo marka lagaga baahan yahay inaad waqti iyo juhdi ku bixiso aad dadaashid aad akhrisid. Maanta wax yariis lagu siiyo ama short lesson lagu siiyo waa inaad adiga sii raadisa adiga sii practicalsa waxyaabo fara badan aad bedeshaa. Ila markii laga hadlayo English ama tennis ama grammar markii laga hadlayo macalinku wuxuu ku siiyay mooyaane wax kale la sii raadiyaa. Macalinka maanta karaayo ku siiyay wuxuu ku dhaafay beeda u dambeey waay karaayo wuxuu ku soo qaatay adiga maxaa laga baahan yahay marka verbe kale inaad u isticmaasho verbe kale inaad keensiyo farbadiin verbe fara badan aad jirto inaad keensi kartaa laga rabo marka dry aad jirto waxaas dhan maxay yihiin verbe farbadiin marka maxaa laga rabo marka aad inaad keensiso aad badbadisha laga rabo marka janaalkani wuxuu ku suurtagelinaa waxay tahay inaad heli karto tennisyo garaamaro conversation adiga ku xiisi geliya oo adigna ku soo jiita marka ardayda dadaalaha wuu gaaraa lahay fadlan mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay hadda wax kasta aad baranaysid waqti iyo juhdi ku bixi iyo practical ku bixi waxaan adigoo practical waqti iyo juhdi aad ku bixinin ma helaysid ama ma ka miro dhalaysid. Maanta daadhaad waxaan rabaa god inaad faagto godka muhiimadda aan u faaginayo waa godkan waxa igu jiro wax inaad soo saartaa raba. Haddii maanta godkan waqti iyo juhdi iyo practical iyo daal aad ku bixinin waxaas adiga ka rajaynaysid godkaas kaaga soo dhaxbaxo ma ka soo dhaxbixin kartid ilaa waqti iyo juhdi maba ku bixinaysid balse markii waqti iyo juhdi aad ku bixisid practical ama daal ku bixisid wixii aad rajaynaysay way ka soo baxayaan. Marka waxbarashadan waa saas haddii maanta aad ku dadaashid waqti haysataa teknoloji cusub haysataa internet haysataa waalida ku joogo maxaa laga baahan yahay marka inaad ku dadaashid wax walba diyaar ah loo yahay inaad adiga dadaal la timaado laga rabo xoog badan ilaahayna tala asaaratid hore tawakkal cala allah ya allah wax walba aad maanta ku dadaashid ay ilaahay ka baridid biritu waa helaysaa insha allah balse hadda maanta aad jiifatid ma heli doontid ila waa jiifatid ila waxaa lalahay nin seexda siciis dubi dhalay baa lalahay hadda maanta soo jeedo waqti iyo juhdi aad ku bixisid practical aad ku bixisid biritu waxaa rajaynaysid waa helaysaa insha allah. Mala arkin qof walba oo maanta waqti iyo juhdi iyo dadaal ku bixiya oo biritu ever soo fadhiista mala arkin wax walba way qoran yihiin balse wixii ku dadaashay ilaahay wixii maanta adiga ilaahay ka barid aan ku dadaasho waqti juhdi aad ku bixisid ilaahay 000 kuma soo dhigaaye haddii meesha lagu talo adiga aad jeceshahay haddaad gaari weysid meel u dhow ilaahay wuu ku gaarsiiyaa. Marka maxaa laga baahan yahay marka inaad adiga waqti iyo juhdi iyo dadaal inaad la timaado alla ka cabsi wax ugu weyn maxay tahay alla ka cabsi waa inaad qortaa alla ka cabsanaa ilaahay aan barinaa ilaahay tala aan saaranaa kadib maxay tahay inaan waxayna aan ku dadaalno juhdi aan ku bixino aakhirana aan u shaqaysano adduunyo kaliya looma baahan in la shaqaystay aakhirana u shaqayso aakhir waxa ka hore waxay tahay camalkaaga wanaagsan adduunyo maxaa waaye waxa adduunyo ku qabsan lahayd ama ku shaqaysan lahayd waa inaan barataa adduunyo waxa ku qabsan ama ku shaqaysan waa inay ahaadaan wax fiican adigana kuu fiican dad kalena u fiican ila maanta qof cilmi barta biritu muxuu baraa dad kale oo baraa marka wax fiican oo bartay dadkana muxuu baraa wax fiican dadkii wuxuu ka soo leexinaa jidkii mugdiga ahaa ama jidkii qaldana ay ku socdeen ayuu ka soo leexinaa wuxuu u soo leexinaa jidkii iftiinka oo nuuraya u soo leexinaa marka waxaan leeyahay dhammaan tiijirada ama macallimiinta khayr allah siiyo waa macallimiin aad u wanaagsan oo maanta jidadka mugdiga laga soo leexiyay laga soo aaday jidadka iftiinka waxaan leeyahay kun iyo koo jeer waxaan leeyahay all the teachers of Somalia thank you ilaahay khayr allah nii siiyo anagana waxaan rajaynaynaa ardayda ama asxaabta sida anaga maanta noola soo dhisay jidka iftiinka noola soo marsiiyey anagana inaan ayaga marsii doono ayagana marka anaga marsiinane dan ayagana kuwa kale jiilka soo bixi doono ayagana inay marsii doonaan aan rajaynaa marka asxaabta ku xiran janaalkani waxaan leeyahay mar kale fadlan janaalkani waa janaalkiina idinka ayaa kala kicin karo cid kale oo kala kicin karta ma laha haddii maanta idinka ugu tala gashaan inaan janaalkani macalinkan ha imaamadiin janaalkani waa kala kaca balse haddii maanta istiraadiin ama shib aa ka dhahdiin ama iska tirtaan janaalkani ma kala kici doono ilaa waxa la kala kicinaa maxay tahay wax fiican adigana ku anfaca adigana dadka la anfici kartid ama ku caawin kartid ayaa maxay tahay waqti wax lagu bixiyaa marka janaalkani waa aragteen waa janaal markasta soo deeya
casharo English ah, tennisyo, grammar, conversation oona kugu aadinayaan wado toosan ee berito adiga aad ku shaqaysan karto ama aad ku fahmi karto ama haddii su'aal lagaaga weydiiyo luqaddan ama tennisyada dhanka grammarada ama berito indhaha taagi doonin aan la rajeynaa marka maxaa waaye fadlan janaalkani macalinka ha loo kala kiciyo, macalinka ha loo share gareeyo, macalinka ha loo subscribe gareeyo, macalinka ha loo like gareeyo. Janaalkani wuxuu ku xiran yahay gacantiina ku xiran yahay. Haddii maanta janaalkani aad tirahdeen janaalkan kor aan u qaadno, janaalkani kor u aadaa. Balse haddii maanta aad idinka istirahdeen ama aad dhihin ama aad shibka dhahdeen ama iska dhili tirtaan inaad janaalkani kor uma kacayo. Balse janaalkan inuu kor u kaco waxay ku xiran tahay inaad idinka waqti iyo juhdi aad ku bixisiin. Anagana janaalkan waxaan rajeeynaa waxyaabo fara badan tennisyo, grammado idinka nii xiisi geliya inaan soo geli doono. Aad noqon doontiin berito learnerska this fantastic language inaad noqon doontiin dhan kasta hadduu ahaa lahaa tennisyo, grammarka, conversationka hadduu ahaa lahaa. Midaas ayaan rajeeynaa. Alla ka cabsana waa mid muhiim ah. Awalan qofka horta inuu Alla ka cabsadaa, kadib maxaa oo Alla tala saartaa, kadib oo waqti iyo juhdi ku bixiya wax uu baranayo berito uu rabo. Ilaa wax walba aad ku dadaashid berito waa helaysaa. Marka cashirkeena halkaas ayuu ku eg yahay. Wixii waana iyo wixii oo codsi ah waa kaas. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.